dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yidhi kow ixris calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku wakhti isku mid u haystaa wakhti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku wakhti noola waa kala nooc sababtay u kala noocyiina waa masalada tan camalka bini aadamku qabtaa waa 3 qaybood mid waa inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madarro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadati wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya wakhtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badanoo ka midi waxaabay dhib ku ah wakhtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu wakhtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayey baabuu wakhtigiisii ku bixiyey wax xaaraano aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli alcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhamme waxtar ma leh kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhamme waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku wakhtigiisii ku qaado nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynayn tarkuhu maa laa yacniih waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa haddaad ka warranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad wakhtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro
qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudaynaa keligaa baanu kaa kaalmo dalbaynaa qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna khasnadaad jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuul allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimka ah markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo arguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam ilqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming
adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanimo haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci iddayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana wuu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadii baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya bushaaro haddii saf loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowgaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra